بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إله بaa mahad iska leh oo ii suurtageliyay maanta 16 bilood kadib inaan dib ugu soo noqday caasimadda magaaladeena Muqdisho. Waxaan doonayaa hadduu Ilaahay yiraahdo inaan ka shaqeeyo xalna ka dhex raadiyo dastuurka furan oo la doonayo in wax laga bedelo ama la dhameystiro. muwaadin kasta oo Soomaaliyeedna waxaa laga rajeynayaa waxaa laga doonayaa ugu horeeya madaxweynaha federaalka Soomaaliya, baarlamaanka labadiisa gole, dowlad goboleedyada madaxdooda iyo shacabka Soomaaliyeedba inay iyagu naftigoodu ay noqdaan xalka. meesha ugu dambeysana oo la rabo in la gaarsiiyana ay tahay wadar ogol, ay tahay in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka Soomaaliyeed. ugu dambeynna waxaan kulligeena dan noogu wada jirtaa in la isku soo dhaweeyo dadka Soomaaliyeed iyo dowladooda. waxaan doonayaa intaan in ka faahfaahsan inaan sheego mustaqbalka waan idin la wadaagi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.